السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إذ لها مبدا وضيال هالكني وهاجا ميديا كسو دوادا وروحان دافها الدنيا هي ديجانا دا أي سومالو تكتب إذا كهنا يقود بدأ أجوا وين أدوار كيجان كدا وندونتانا وحاكمدا دولة فدرال كي سوماليا أو ماموس كي يترشدي مدحوينه كحيورسي مدحدا مامل قبل ديدا خلاف علوس أو تاجن إيه قرشها قرشون إيه حسن شيخ محمود ووطو وصبيحي أو كعر يا هرجيسا عرق أو قرش ودقي يكل ما لقول حدين يه أو فشل لغي أحمد مذوبه يسعيد دني أو دبر كأوتشيدي تركيا شير سردان كتركو وقبنا يا مقدشة أو أي قان كقاتين يا حالك أو ألا وسهلة SSC خاتم أو فرمرة كتشوك تعيدا كذي مشهر كي أو صدح بلوت كقان يهبكي أو لقى عبسي قبو إني كإيبيان سوماليلان يبوتلان wararkeena caalamka waxa aynu ku eegi doonaa dagaal mar kale ka qarxaya bariga dhexe iyo Mareykanka oo guudiyay Iran maxay tahay jawaabta culus ee Tehran ay soo saartay intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada warka imikii ahaatana kuwa iyo kuwa kale faahfaahintooda isku diyaariya نقد وناكسن داوديال aynu ku bilowna ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah waxa ay u dhaqan gelisay qorshihii uu Xasan Sheekh Maxamuud ka lahaa in uu wiiqo awoodda iyo saameynta ay madaxda maamul goboleedyadu ku leeyihiin siyaasadda guud ee dalka taasi oo ku rabo in gebi ahaanba uu meesha kaga saaro saameynta culus iyo khilaafaadka ay mar walba madaxda maamul goboleedyadu ay kala hor yimaadaan dawladda federaalka dawladda federaalka si rasmi ah waxa ay hoos ugu dhigtay oo ay meesha ka saartay maamuuskii iyo darajadii ay lahaayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada taasi oo saameyn weyn ku yeelan doonta dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la soo afjaray in la isticmaalo magaca madaxweyne taasoo loo adeegsanayo hogaamiyayaasha maamul goboleedyada dalka waxaana ay tilmaamtay in gebi ahaanba wixii maanta ka dambeeyay loo adeegsan doono magaca hogaamiye oo gebi ahaanba laga saaray magaca madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa arintan ku dhawaaqay waxaana uu sheegay in hadda kadib madaxweynayaasha maamul goboleedyada loogu yeeri doono hogaamiyayaal isla markaasina aan marnaba la aqbali doonin in loogu yeero madaxweynayaal taasi oo hoos u dhigaysa meeqaamkii darajadii iyo karaamadii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu lahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ay waxa uu tilmaamay in arintani ay ka dambeysay kadib dhaqangalkii dastuurka cusub ee muranka badan dhaliyay taasi oo wiiqaysa awoodda madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxa uu tilmaamay in laga guuray madaxda dawlad goboleedyaduna ay waqtigan yihiin hogaamiyayaal shacabka deegaanadooda hogaamiya sidoo kalena madaxweynaha kaliya ee dalka Soomaaliya ka jira madaxweynaha loo doortay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasi oo ah madaxweynaha rasmiga ah ee loogu yeeri karo magaca madaxweyne isbedelkan uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa uu sheegay in ay taabanayso dhammaan dawlad goboleedyada dalka oo xitaa ay ku jiraan Jubbaland iyo Puntland oo si weyn ay isku hayaan dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana qaadacay dastuurka cusub ee malmarisay dawladda dhexe waxa uu tilmaamay in Jubbaland iyo Puntland ay ku qasbanaan doonaan inay dhaqan geliyaan dastuurkan cusub isla markaana magaca hogaamiye si rasmi ah loogu yeeri doono dastuurka cusub ee uu hore u saxaxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu dhigayaa in ragga maamul goboleedyada maamulaha aan loogu yeerin madaxweynayaal laakiin taa bedelkeeda la siiyo darajo ka hooseysa oo hogaamiyaal laakiin waxa si weyn la isku weydiinayaa in ay aqbali doonaan iyo in ay si adag uga soo horjeesan doonaan hogaamiyayaasha maamula dawlad goboleedyada Soomaaliya ayaa qaarkood si adag waxa ay uga soo horjeesteen arintan iyagoo ku tilmaamay dastuurkan cusubna mid uu Xasan Sheekh Maxamuud samaystay oo aan raali laga wada ahayn waxayna gebi ahaanba meesha ka saareen in loogu yeero magaca hogaamiye isla markaana waxay ku doodeen in ay xaq u leeyihiin inay si adkaystaan darajada iyo maamuuska madaxweyne ee waqtigan loogu yeero madaxda dawlad goboleedyada si weyn waxa la isku weydiinayaa in go'aankan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hoos ugu dhigayso saameyntii iyo darajadii ay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu lahaayeen inay noqon karto mid si rasmi ah u hirgasha iyo inay noqon karto mid kaliya hadal uun ku soo hadha oo aan wax ficil ah la raacin aynu ku sii socono daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa iskaga cararaya Hargeysa isagoo la filayo inuu safar degdeg ah uga baxo dalka Djibouti kadib markii dhawaan uu shaaciyay inuu si rasmi ah uga soo horjeestay safaaradda ay Soomaaliland ka furatay magaalada Qudus sidoo kale su'aal geliyay aqoonsigii ay Soomaaliland ka heshay dalka Israel
wararka soo ifbaxaya ayaa tilmaamaya in safarkan degdega ee madaxweynihii hore ee Somaliland uu kaga baxayo dalka ay tahay kadib markii uu helay xog sheegaysa in madaxweynaha Somaliland iyo xukuumaddiisu ay diyaarinayaan si ay gebi ahaanba meesha uga saaraan saameynta siyaasadeed ee Muuse Biixi ku leeyahay siyaasadda gudaha dalka. waxaa sidoo kale xoguhu tilmaamayaan in Muuse Biixi Cabdi talaabadan uu safarka ugu baxayo dalka Djibouti ay dabada ku hayso kadib markii uu markaasi dhawaan loo soo fasaxay hantidii kaga xayirnay dalka Djibouti taasi oo madaxweynaha dalkaasi uu dhammaanba u soo daayay hantidii lacageed iyo dhismayaashii uu ka xayiray markii uu xukunka ka degay. Muuse Biixi Cabdi oo si adag uga soo horjeestay in Somaliland ay wax safaarada ka furato magaalada Qudus ayaa muddooyinku u dambeeyay khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu marayay heerkii ugu sareysay iyadoona ay gaadhay heer ay warbaahinta iskaga jawaabaan. xukuumadda Somaliland ayaa waxa ay diyaarisay qorshe ay ku wado in ay ku wiiqdo isla markaasina ku cadaadiso cid kasta oo ka soo horjeesata aqoonsiga ay Somaliland ka heshay Israa'iil iyo sidoo kale safaaradeeda ay ka furatay magaalada Qudus. qorshahan culus ee loo degay mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee Somaliland ayaa ah mid lagu doonayo in xabsiga lagu guro iyadoona maalintii koowaad ba xabsiga la dhigay gudoomiyihii xisbiga mucaaradka ee ka ee gobolka Gabiley kaasi oo isna kamid ahaa dadkii sida adag uga soo horjeestay safaaradda isla markaasina sida weyn u dhaliilay xukunka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. dhanka kale ergooyin isxilqaamay oo madax dhaqameed siyaasiyiin iyo aqoonyahan iskugu jira oo doonayay inay mucaaradka ku qanciyaan in ay aqbalaan aqoonsiga iyo safaaradda Somaliland ee Qudus sidoo kale ay isku soo dhaweynayay Ciro iyo Muuse Biixi ayaa dhammaan kulamadaasi waxa ay noqdeen kuwa fashil ku soo dhamaaday oo natiijo la'aan fooda daray kadib markii dhinacyadu mid kastaaba uu mowqifkiisa ku adkaystay. xukuumadda madaxweyne Ciro ayaa doonaysa in dadka ka soo horjeesta aqoonsiga iyo safaaradda Qudus ay ku shaambadayso in ay mashruuc qaranka lagu burburinayo ay ka soo qaateen dawladaha kale ee Islaamka gaar ahaan Sacuudiga iyo Turkiga oo si weyn arintan dadaal ugu bixiyay in ay Somaliland iyo Israa'iil xiriirkoodu uu noqdo mid wiiqa. madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa si weyn waxa uu wadaa dadaal uu ku doonayo in uu Somaliland ugu raadiyo dal labaad oo soo raaca Israa'iil kaasi oo si rasmi ah u aqoonsada Somaliland. si weyn waxa loo eegayaa in ay talaabadan xukuumaddu ay ku doonayso in ay ku bartilmaameedsato mucaaradka iyo dadka ka soo horjeeda aqoonsiga iyo safaaradda Qudus in ay hirgasho oo dhammaanba xabsiga lagu guro iyo inay noqoto mid barkumataal ah oo markaasi ay mid kastaaba ajandihiisa hoosta ku hayso Somaliland ay noqoto mid mowqifka iyo dadaalada iyo aragti kala duwanaanshaha tixgelisa. Somaliland ayaa 26 December aqoonsi rasmi ah waxa ay ka heshay dalka Israa'iil iyadoo dhawaan madaxweynaha Somaliland safar ku tagay magaalooyinka Tel Aviv iyo Qudus uu kaga soo furay magaalada Qudus safaaradda ay Somaliland ku yeelanayso Israa'iil taasi oo si weyn uga cadhaysisay dalalka Carabta iyo kuwa Muslimka ah. waxayna tilmaameen in talaabada Somaliland ay safaaradda uga furaysanayso Qudus ay tahay mid islaamnimada iyo sidoo kale shuruucda caalamiga ah ba ka soo horjeeda. si weyn waxa loo eegayaa xaaladda Somaliland halka ay saldhigato iyo sidoo kale Muuse Biixi in uu saldhig rasmi ah ka dhigto Djibouti. aynu ku sii socono daawadayaal wararkeena madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa si adag waxa ay uga soo horjeesteen dadaalada dhexdhexaadinta ah ee dawladda Turkigu ay ka wado sidii xal looga gaari lahaa khilaafka dawlad goboleedyada iyo mucaaradka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee u dhaxeeya taasi oo salka ku haysa heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka. ila wareedyadu waxay xaqiijinayaan in markaasi Puntland iyo Jubbaland ay diideen in ay qayb ka noqdaan kulamada maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho ee dhinacyada sirdoonka Turkigu ku doonayaan in ay ku dhexdhexaadiyaan dawladda federaalka iyo mucaaradka iyadoo sababta ka dhigtay in aysan Ankara dhexdhexaad ahayn isla markaasina arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay dhinac ka raran tahay oo ay la safan yihiin dawladda federaalka ee uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. sidoo kale Jubbaland iyo Puntland ayaa sababta ay uga qayb gali waayeen shirkan ka dhacaya Muqdisho waxa ay ku tilmaameen in aanay nafahooda iyo masiirkooda midna aanay ku aamini karin Muqdisho maadaama oo laga cabsi qababa in halkaasi xabsi guri lagu xukumo loona diido in ay dib ugu laabtaan Kismaayo iyo Garowe. cabsidan iyo walwalkan weyn ee soo food saartay Jubbaland iyo Puntland hogaamiyaashooda ayna ku diideen dhexdhexaadinta ay sirdoonka Turkigu ka wadaan Muqdisho ayaa ku soo aadaysa xilli maanta magaalada Muqdisho la filayo inuu ka dhaco kulan la iskugu soo hor fadhiisanayo
guddiyada farsamo ee mucaaradka iyo dowladda federaalka ah markaasi kala matalaya si xal looga gaadho khilaafka doorashooyinka iyo qalalaasaha amni ee ka taagan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. wakiilada Puntland iyo Jubbaland matalaya ee u jooga Muqdisho ayaan maanta gebi ahaanba waxaanay qayb ka noqon doonin kulanka koowaad ee toos u dhexmaraya wakiilada reer galbeedka Turkiga iyo dowladda federaalka iyo mucaaradka kaasoo ah midka rasmiga ee ugu horeeya ee gorfaynta doorashada taabanaysa. Ankarana waxa ay si weyn ugu dadaalaysaa sidii ay ugu xaglin lahayd dhagaxa Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidii uu mar kale xukunka ugu soo laaban lahaa. toddobaadkii ka hor Jubbaland iyo Puntland ayaa ka hor waxa ay sheegeen golaha mustaqbalka dhexdooda in Ankara aanay dhaxahayn iyagoona sheegay in aanay haba yaraatee wax kalsooniya arrintaasi aanay ku qabi karin. waxaana diidmadan qayaxan ee dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ay ka muujiyeen shirkan maanta ka dhacaya Muqdisho ay si xumayn kartaa khilaafkii iyo xiisadii awalba u dhaxeeyay dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya. isagoo Xasan Sheekh Maxamuudna uu miiska soo saaray qorshihii ugu weynaa ee uu labada hogaamiye ee Dani iyo Axmed Madoobe uu xukunka Jubbaland iyo Puntland meesha uga tuuri lahaa iyadoona si weyn loo filayo in qorshahan iyo diidmadan caadiyay ay keento in mucaaradkuna sidoo kale ay walaac weyn ka muujiyaan dhexdhexaadnimada Turkiga ee doonaya in xiisadda Soomaaliya xal laga gaaro. si weyn waxa loo eegayaa halka ay arrintani saldhigato iyo sidoo kale inay noqoto mid hirgasha kulankan oo wax natiijo oo midho dhal ah ay ka soo baxaan taas oo xal u noqon karta khilaafaadka lagu sii kala fogaanayo ee arrimaha doorashooyinka salka ku haysa taas oo u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. waayahay daawadayaal wararkeeni baynu ku sii soconaynaa maamulka waqooyi bari ee laga dhisay Laascaanood ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa faramadnaan ka jooga ciidankoodii markaasi ku sugnaa jiidaha iyadoona markaasi cabsida ugu weyn ay taagan tahay in ciidamada SSC Khatum ama waqooyi bari ay markaasi u kala cararaan iskuna dhiibaan Puntland iyo Somaliland. ciidamada waqooyi bari ee maamulkoodu Laascaanood yahay ayaa waxay wararku tilmaamayaan in 3 bilood oo joogto ah aanay haba yaraatee wax mushahar helin isla markaasina Firdhiye oo hogaamiyaha maamulka waqooyi bari uu si cad u diiday kana gaabsaday in mushaharaadkoodii ay heli doonaan taas oo keentay walaaca ugu weyn ee ciidamada waqooyi bari ay ku rabaan in ay kaga goostaan maamulkaasi dibna iskugu dhiibaan Somaliland iyo Puntland. sidoo kale ciidamada waqooyi bari ayaa si weyn waxa looga cabsi qabaa in ay hubka gacanta ku haystaan ee gaadiidka iyo qoryahaba leh in ay markaasi ka iibiyaan Somaliland iyadoona maalintii shalay ahayd ay markaasi gaadiid iyo xubno ciidamo ahi ay isku soo dhiibeen Somaliland isla markaasina ay sheegeen in xaalad qasnaan iyo mushahar la'aan ay ka taagan tahay Laascaanood iyo maamulka laga dhisay ee waqooyi bari. madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdiqaadir Firdhiye oo dib ugu soo laabtay magaalada Laascaanood ayaa quus waxa uu ka joogaa dhammaan ballamihii uu la soo galay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo ahayd in maamulka waqooyi bari loo soo deyn doono mashaariic waaweyn sidoo kale dowladda federaalka ay ka weyn ka geysan doonto helista mushaharaadka ciidamada waqooyi bari. arrintani si weyn guuxeeda waxa looga dareemayaa magaalada Laascaanood iyagoona ciidamadii markaasi qaarkood ay noqdeen kuwa isku soo dhiiba Somaliland ayaa waxa ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba albaabadeedu ay u furan yihiin ciidan kasta oo ka soo goosta maamulka laga hirgeliyay Laascaanood ee waqooyi bari waxayna tilmaamtay in soo dhaweyntooda iyo maamuuskoodaba aanay wax shuruudahay ku xidhnayn. arrintana walaac weyn waxay ku abuurtay Firdhiye iyo maamulkiisa iyagoona laga cabsi qabo in ciidamadii ugu badnaa oo gaadiid iyo hub wataba ay iska dhiibaan Somaliland isla markaasina ay halkaasi xaq iyo xuquuq ka raadsadaan kadib markii Somaliland ay ku dhawaaqday in ay cafis u fidinayso. waayahay daawadayaal wararkeena caalamka ee qodobka ugu dambeeya ahna waxaynu ku eegi doonaa dagaal mar kale ka qarxa bariga dhexe ayaa cabsidu taagan tahay iyagoo Mareykankuna u goodiyay Iran maxay tahay jawaabta ay Iran ka bixisay arrintaasi. si weyn cabsida uga taagan ayaa ah in burburo heshiiskii Iran iyo Mareykanka u dhaxeeyay ee lagu soo afjaray dagaalkii bariga dhexe taasi oo markaasi wajiga koowaad la hirgeliyay sidoo kalena la doonayo in laga dhigo heshiiskaasi mid kama dambaysa oo si rasmi ah u hirgala. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in uu weerar ku qaadi doono Iran haddii aanay markaasi fulin in talaabooyinka heshiiska ku jira halka Iranna ay tilmaamtay in ay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaada Iran, Israa'iil iyo Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Iraqi waxa uu sheegay in inta ay sii jiraan hanjabaadaha loo jeedinaya Iran ee kaga imanaya Mareykanka in aysan bilaaban doonin
wadahadallada lagu gaarayo heshiiska kama dambaysta ee lagu soo afjarayo colaadda bariga dhexe. qodobka 13aad ee heshiiska is-afgaradka ee Mareykanka iyo Iran waxa uu si buuxda u sheegaya oo aan mugdi ku jirin in ay sii soconin hanjabaadaha ka dhanka ah Iran. sidoo kalena haddii arrintaasi ay caado noqoto waxa uu wasiirku ku hanjabay in Iran iyaduna ay tallaabo kala qaadi doonto. saacado ka hor madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadaladiisii ugu dambeeyay mar kale waxa uu hanjabaad ugu jeediyay Iran isagoo sheegay in haddii heshiiskaasi si rasmi ah loo dhaqan gelin waayo kama dambaysna laga dhigi waayo in uu soo afjari doono sheegashada Iran weerar culusna uu ku qaadi doono. si weyn waxa loo eegayaa in bariga dhexe xaaladiisu ay nabad sii ahaato iyo in mar kale qoriga iyo weerarku ay afka xabadda ka baxdo isla markaa dhinacyadu ay weerar culus ku qaadaan. intaas daawadayaal waa wararkeeni hageen ku soo gabagabeynayna warkan warka xigay intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.